تأملات قرآنية. قرآن أحيا في قلبي نورا من بين الظلمات، أعطاني ثقة في ربي، أملا إيمانا وحياة، في كوني لا أيأس أبدا والحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaynu ku jirnay walaalayaal xalaqaadkii aynu ku fasiraynay suuradaha hoose. waxaa hadda aynu maraynaa maanta insha allahu tabaaraka watacaala aynu qaadan doonaa suuradda attakaathur. suuraddan suuratu attakaathur ama suuradda loo yaqaano alhaakum waa suura makiya oo suuradaha maka kusoo degay ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa dadka uu xasuusinayaa aakhiro iyo xaqiiqada waxa weeyaan aakhiro inay tahay mid xaqiiqiya, inay tahay daarta raasumaalka ah ee dhabta ah ee waxa weeyaan aynu u dambeyn doonno. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim. alhaakum waxaa idin mashquuliyey attakaathuru, in aad badsataan oo badsi iyo inaad ku fekertaan badsi oo dunidii aad kala badsataan ayaa idin mashquuliyey. lama sheegin waxa la kala badsanayo. waxaa soo gelaya in la isugu faano oo la badsado xoolo. waxaa soo gelaya in la isugu faano oo la badsado ubad. waxaa soo gelaya wax kasta oo dunida ka mid ah waxa weeyaan ama dunida jooga in la isugu faano. alhaakum waxaa idin mashquuliyey attakaathuru, isufaan aad isugu faantaan xoolo oo aad badsataan, xataa zurtum almaqaabira, ilama ayo inta aad ka soo booqanayseen qabriyadii, yani intaad ka dhimanayseen waxa aad ku mashquulsanaydeen oo idin mashquuliyey takaathur iyo waxa weeyaan badsad. kalaa sawfa taclamuuna, kalaa may, arrintaasi in aad ku mashquushaan sax ma aha. sawfa taclamuuna, jeer dambe ayaad ogaan doontaan. uma haddana kalaa sawfa taclamuuna, jeer dambe ama waqti dambe ayaad ogaan doontaan. kalaa may, low taclamuuna cilma alyaqiin, allah haddaad ogaan lahaydeen cilmi hubaal ah oo yaqiin ah haddii aad ogaan lahaydeen, oo waxa weeyaan aakhiro iyo xaqiiqada jannada iyo naarta iyo waxa halkaa ka jira haddaad ogaan lahaydeen, yacni waad u shaqaysan lahaydeen, kumaydan mashquulteen waxa weeyaan oo iskumaydan mashquuliseen dunida. latarawunna aljaxiima, wallaahi ilaahay baan ku dhaartay, latarawunna aljaxiima, waxaad arki doontaan oo haddana aad arki doontaan naarta jaxiima. uma haddana latarawunnaha, waxaad arki doontaan cayna alyaqiini, indhaha ayaad saari doontaan oo cayn iyo yaqiin hubaal ah ayaad arki doontaan oo hortiina iman doontaan. uma latus'alunna yowmaidin can الnaciim, haddana latus'alunna, wallaahi waxa la idin su'aali doonaa oo la idin weydiin doonaa yowmaidin maalinka can الnaciimi, nimcadii dunida waxa weeyaan aad ku sugnaydeen. suuraddani markaa waxay ka digaysaa dunida in lagu mashquulo, in laga waxa weeyaa daba dhaco. xataa zurtum almaqaabir, culammadu waxay yidhaahdeen zurtum almaqaabir, qabriyadii la gelaya waxa laga cabiray siyaaro, waayo qabrigu ma aha kama dambaysta meesha dadku waxa weeyaan ay ku dambaynayaan ma aha. qabriga waxaa ka dambeeya xisaab iyo isa soo saar. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu dhaleeceynayaa ma aha dunida in waxa weeya la shaqaysto, in la xoogsado, in waxa weeyaan qofku duni iyo xoolo qofku inuu helo. waxa la dhaleeceynaya in lagu mashquulo alhaakum الtakaathur, oo qofku uu kaga mashquulo daartii aakhiro iyo camalkii saalixa ahaa.
marka nimcooyinka ilaahay subxaanahu watacaala waaweynna aakhiro waa la isweydiin doonaa oo waxa nimcooyin aynu ku jirno latus'aluna yowmaidin can الnaciim alxasan albasri waxa uu yidhi waxaa nimcooyinka la isweydiin doona ka mid ah qofka subaxii intuu quraacdo inuu qadeeyo oo uu wax cuno waxa weeye dhowr goor waa waxyaalaha nimcooyinka la isweydiin doona ee waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu kala xisaabi doona ayay ka mid tahay suuraddan waxyaalaha kale aynu ka qaadanayno waxaa ka mid ah waxaa la cabiray kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin iyo uma latarawunnaha cayna alyaqiin cilmu lyaqiinku waa in qofku waxa uu maqlo uuna rumeeyo cilmu lyaqiin baa la yidhahdaa waa cilmi hubaala caynu lyaqiinna waa in waxaasi qofka hortiisa uu yimaado oo qofku uu toos u arko marka cilmu lyaqiinkuna waa hubaashii dhabtahayd caynu lyaqiinkuna waa aragtidii dhabtahayd qofku arkayay marka ilaahay subxaanahu watacaala inaga dhigo dadkii u shaqaysan lahaa daarta aakhiro nimcooyinka waaweynna dadkii shukri naqeedii la iman lahaa ilaahay naga dhigo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed